waxaa jiray nin reer miyi ahaa oo ku nool gobolka Shabeellaha Hoose oo maraya meel buur agteeda. Wuxuu arkay nin waayeel ah oo buurta agteeda fadhiya. Wuu indhalaa, waxaana ninkii ka muuqday jirkiisa inuu qabo cudurro aad u badan. Waxay u ekeed odaygu inuusan sii noolaan doonin. Qaybo ka mid ah jirkiisa dareen ma lahayn, sidaa daraaddeeda hal dhinac oo keliya ayuu u fariisan karay. Markii odaygii reer miyiga ahaa oo odayga dhaafay, ayuu maqlay odaygii miskiinka ahaa oo leh, Allah ayaa mahad iska leh iga badbaadiyey cudurro badan oo dadkiisa ku imtixaanay. Runtii Allah wuxuu iga doortay qaar badan oo ka mid ah kuwa uu abuuray. Ninkii reer miyiga ahaa ayaa ku soo noqday odaygii wuxuuna ku yidhi, walaal ma wax alle ka badbaadiye ayaa jira. Allah ayaan ku dhaartay, jirkaaga cudur ka maqan ma jiro, ee bal alla bari inuu ku caafiyo. Odaygii ayaa isagoo dhinac isu tiirinaya ninkii ugu jawaabay, walaal haddaan haysto af iyo carab aan alla ku xuso iyo qalbi aan Ilaahay ku xiriiriyo, maxaa kaloo iga maqan? Nolosha qiimaheedaba waaba intaasna dad aan haysan ayaa jiro. Erayadan ayaa bedelay ninkii reer miyiga ahaa oo ahaa nin diinta aan ku fiicnayn. Allah subxaanahu wa tacaala ayuu u toobad keenay oo uu dembi dhaaf weydiistay. Muddadaas kadibna wuxuu ahaa mid alle ku xiran. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praise.